diyaarado waddanka Turkigu leeyahay ayaa laba dhigaya saanad military magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya iyadoo halis xooggan ay ka taagan tahay qorshaha loo soo daabulayo saanadan military. Haddaba ma Somaliland ayaa noqon doonta meel lagu tijaabiyo hubka mise meelo kale ayaa loo wadaa? Ma waxaase uu Turkigu ku wareejiyay ciidamada Soomaaliya diyaaradda F-16 iyo diyaarado kale oo dhinaca dagaalka ah? ma la gaaray waqtigii Somaliland ay albaabada isugu dhufan lahayd xafiiska waddanka Turkigu uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Xaalad kala guur ah iyo guuldarrooyin diblomaasiyadeed ayay martigelinaysaa Muqdisho iyadoo madaxweynaha 4 sannadood ee ugu dambeysay soo arriminayay ay u dhiman tahay muddo 3 bilood. ilaa iyo xabaalaha ayuu sii qotay Xasan Sheekh Maxamuud muddadii uu xilka hayay iyadoo dhammaanba xaraashay meelaha muhiimka ah sida oo kalena saxiixyo waaweyn oo dawladda shisheeye sameeyay. waxaana dawladaha uu saxiixay shidaalka Soomaaliya oo dhan iyo macdanteeda ka mid ah Turkiga oo haatan saanad military oo qeyral caadi ah ku soo daabulaya magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. hubkan oo ay soo laba dhigayaan diyaaradaha militariga ee waddanka Turkiga ayaa ilaa iyo haatan aan la ogeyn ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa iyo meesha loo isticmaali doono. inkastoo laga warhelay deegaan la doonayo in laga dhigo mid lagu muransan yahay oo nabadgelyada ka caagan kaasi oo Somaliland ka tirsan una ah bartilmaameed dawladda Turkiga iyo dawladaha kale ee xulafada la ah oo ay ka mid yihiin Masar iyo Sacuudigu. ma aha se deegaamada aan kheyraadka lahayn ee ka maqan gacanta Somaliland waa deegaan ay dawladdu ku awood badan tahay sidoo kalena ciidamo military oo ka tirsan Somaliland ay ku sugan yihiin. waxaana si weyn loogu eedeynayaa maalmihii ugu dambeysay soo gelinta saanada military oo la soo mariyay magaalada Djibouti ee xarunta waddankaasi iyadoo ay soo qaadeen ciidamo Djiboutiyan iyo kuwaasi oo ka soo dejiyay gobolka Selil oo ah meesha la doonayo in lagu tijaabiyo saanada military ee waddanka Turkiga uu ku soo daabulayo magaalada Muqdisho. balse waxaa jira caqabado badan oo hor yaalla kuwaasi oo keenay dawladaha Carabeed in aanay dhiiranin maadaama ay cabsi weyn ka qabaan dawladda Israa'iil. deegaanka oo aan Soomaaliya deris lahayn balse Djibouti loo soo dhex marayo ayaa iyaduna caqabad kale ah taasi oo dawladda Djibouti ay dhexda u gashay duulaamo galaafan kara iyo dagaalo diblomaasiyadeed iyadoo ay Soomaaliya oo aan ku taagnayn culayso colaad aan la ogeyn meesha ay ku dhamaanayso. siyaasiyiinta hogaaminaya Somaliland ayaan cudud lahayn caqli lahayn oo ciidan lahayn balse waxa ay doonayaan dawladda shisheeye inay adeegsadaan si ay gudaha Somaliland uga fuliyaan qalalaase maadaama oo awoodoodu iyaga aanay halkaasi gaarsiisnayn. walaac weyn ayaana ay Somaliland iyo Israa'iil arrintaasi ka muujinayaan iyagoo isha ku haya dhaqdhaqaaqyada uu sameynayo Turkigu ee halista badan sidoo kalena hubka loogu soo daabulayo magaalada Muqdisho. waxa ay Ankara garowsan tahay Somaliland inay ku taalo meel muhiim ah oo lagama maarmaan ah dhulka ay Xasan Sheekh Maxamuud ka kireysanaysay ee uu saxiixayna waxa uu noqday dhulka Somaliland oo aan gacan ugu jirin Soomaaliya 35 sannadood ee ugu dambeeyay. waana sababta miyir la'aanta iyo moral jabka u horseeday dawladaha Carabeed ee haatan xulafada la ah Soomaaliya. xafiiska waddanka Turkigu uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa weli sii furan iyadoo la isweydiinayo diblomaasiyiinta Somaliland waxa ay ka faa'iidayaan oo aan ahayn basaasnimo iyo xogaha muhiimka ah inuu xafiiskaasi gudbiyo. inkastoo ay dhaqdhaqaaq kasta oo soconaya u dhuun dalolaan diblomaasiyiinta Somaliland lamana oga faa'iidooyinka ay ka helayaan qunsuliyadda waddanka Turkigu uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxayse u muuqataa waqtigii albaabada la isugu dhufan lahaa in haatan la joogo oo waqti intaasi ka badan aanu Turkigu sugnaansho iyo joogitaan ku yeelan doonin magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. warbaahinta Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeysay faafinaysay warar been iyo waxba kama jiraan ayaa saacadii ugu dambeysay sheegtay in ciidanka Soomaaliya la siiyay diyaaradaha dagaalka oo ay ku jirto F-16 oo ah mid ka mid ah diyaaradaha sida weyn looga ixtiraamo marka ay noqoto dhinaca duulimaadyada. balse sheegashada tani ayaa noqotay mid faan iyo buunbuunin ah aanayse waxba ka jirin. dadaalo badan oo ay ku doonayeen wadamada Carabtu inay uga soo horjeestaan aqoonsiga Somaliland ayaa fashilmay iyadoo kuwa haatan soconayana loo daroosayo in Israa'iil iyo Somaliland oo isku xulafo ah u horseedi doonaan guul darro.